السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا بر أما برو sida maanta waxaa idin tusaynaa barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay sida la iskaga xiro warqadaha kaga imaanaya Facebook oo inbox-kaaga buuxinaya ama Hotmail ha ahaado ama Yahoo qofba wuxuu isticmaalayo. daawasho wacan waxaa sameynaysaa kooda hore Facebook-kaaga soo kicinaysaa marka Facebook-kaaga soo kicisid kadib waxaa sameynaysaa tilmaantan la soco account imaanaysaa sugaan soo weynay zoomka account aad dooranaysaa kaligaasine kadib waxaa imaanaysaa account settings kaligaasine waxaa sugaysaa intay ka shaqeynaysaa khadka kadib halkan waxaa ku qoran my account waxaa aadaysaa meel ay ku qoran tahay notifications waa ka notifications click ayaa siinaysaa notifications markaa ku dhufato kadib waxaa ku soo baxaysa halkaan ay imaanaysaa sida shaashada kaga muuqata meelahan Facebook wixii wax walba la suubiyo oo inbox-kaaga imaanaya halkaan ay ka xukumaan notifications waxaa waajib ah inaad samaysid si macnaha warqadahaas ay ku imaanin meeshan saxda ah fikta saaran waa ka dejinaysaa kulli waa ka qaadaysaa way badan yihiin ilaa hoose u dadegayaan marka kulli waa ka qaadaysaa fikta dhammaan hal xab ma dhaafaysid subbaasaan dhammaan markaa ka qaadad waa kan wax masaarna kulli waa ka qaaday markaa dhammaan aad ka qaadid waxaa imaanaysaa halkan save changes click ayaa siinaya adigoo save dhihin waxba kuu hagaagaya markaa save ku dhufato kadib waa kan intuu kuu sheegaa your changes has been saved dhaqdhaqaaqa aad samaysay wax waa laga bedelay aa lagu dhahay marka hadda wax emailkaaga inbox-kaaga oo Facebook ka socoto ma ku imaanayso waa mahadsantiin daawashada